qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo isugu jira salaadiin waxgarad iyo aqoon-yahano ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda murugsan ee siyaasadda dalka haatan ay marayso xilli mikrofoonka VOS TV ay la dhex qaaday qaybahaasi kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka hadleen xaaladahaasi haddaba waa kuwan iyagoo ka hadlaya aragtiyadooda kala duwan hadalka waxa la magacaabay مسؤولنا waxa weeyaan shaqadii baa laga saaray wax lagu mashquulo ma aha anigu cadaynu ma hayo arinta hadii ay jirto waxaan mas'uuliyiinta leeyahay gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaayay hawshiina dhamaysta hadii aanay jirinna shacabka Soomaaliyeed ay iska daayo boonbooninta arinta iyada la sheegayo waxa saaka arkay magaalada Muqdisho laga qaxayo حبدنا كمان دعين وحاق حين يا ضدك وحوي والسياسيين كل نكستو عقل لو سومالي وقرن كرا ماشي ودك الله وضع وخير مسؤولية وبهالنمو ومحاكر هذا نمان حشوني وحو سمين لها صومها سيدا درتيد ومد صومال وحان كعود سنين ضدك قالت هذا كوحريسة الذي هبر قديج كوحريسة سيلو وقوليستو وإن لا تاجر رئيس وزراء ومد الصوماليات حل كمال كله ولا جدونه إلهي أبو رتبيرة تمل هدين من كان يسيج جوار ماشى صومالي وحيكون بشارة سنين خوش ليش يدلي دونه وحان واركا وراقها اللي كده مقعابتان كان كل مدحوينا مدح يصير مربى ما يكون في صناعه مدح كل دعوي هي شغلنا وشغل رئيس الوزراء وطلع markaan waxaan u arkaa madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Cabdullaahi Farmaajo waqti inuu iskaga lumin badbaadada faadiyaasiya ee uu ka shaqeeyo sidii dalkan hore ugu socon lahaa oo doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen oo wax walba ay u aadi lahaayeen anu marka waxaan kula talin lahaa Farmaajo Allah duwa leeyahay oo nin muslimad tahay ninkaas ma badbaadi kartid faadiyaasiin leeyahay aduguna faadiyaasiin oo kala noqoni hadda wax yara ku warsana wax yar ka islaafsiin dan in muslimna tahay umadana waa ku dhibsadeen adeer ugu cali madaxtooyada iskiisu sidoo aragtaa mudaareen ururtooyinka wadareen caadi kala bajoogay sidoo aragtaa xaaladda siyaasadeed hadda dalka uu marayo magacay waxa la yiraahdaa Cabdi Jamaal Xaaji Diire macnaha dadka ku nool gobolkan waxaan u arkaa xaalad ciyaar oo jamhuuriyad lagu ciyaarayo madaxweyne la sharfay oo hore nooga waani jiray ama sheegay jiray inay siyaasiyiin careysan dhihi jiray inuu u ekaado madaxweynaheena jamhuuriyadda ee waqtigiisu dhamaaday inuu ku sifoowo wixii uu dadka ka waani jiray ama noo sheegi jiray oo siyaasiyiin careysan inuu isu bedelay madaxweyne careysan waa riyaadinayaan dib u dhacna waa u keeni karaan waddankan constitution-kan uu leeyahay madaxweynaha waa og yahay hal degmo oo ka mid ah degmooyinka galmudug uu ka soo jeedaa reer ahaan madaxweynaha wuxuu madaxweyne ku ahay dastuur wuxuu madaxweyne ku ahay wuxuu madaxweyne sharci ku ahay oo aan raalli uga ahayn oo ku ahay qodobka 91 waa dhamaatay madaxweyne waa lagu ixtiraamay biseelka dadka gobolkan ee dimuqraadiyiinta ugu abaal celinin inaad ku carooto oo damacaan meel ku geenin oo ugu dambeyn sida Conakry ku dambeynaya sameeynin madaxweyne haddii maanta qof la eedeey oo dhibaato loo haysto qofku waxa la rabaa inuu kiis baxo runtii waxa hadda uu ka dhashay khilaafkana waa xilka qaadistii faadiyaasiin waay faad dacwo loo haystaa dacwadaas marka waxa weeye inuu kiis baxo ama hal lagu helo ama hal lagu waayo laakiin lama dacweyn karo weeye waan arkaynaa xalay waxa dhacay qaladka dhacay in loo magacaabas qaldoon ay tahay waliba la taliyaha amniga qaranka runtii arintaas waa ka soo horjeednaa haddii aan nahay shacabka Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed maqan oo meel lagu sheegin inay nooshahay inay dhimatay runtii marka waxaan rabnaa haddana shacabka Soomaaliyeed in loo midoobo oo hal dhinac loo noqdo ikraankiiskeedii inay cadaalad ay hesho shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayay dan ugu jirtaa
annaga haddaan shacabka soo dhaweynayna cadaaladaan rabnaa waxaan ku baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay mudaharaad ay cadaalad inay ku hesho ekraan Taaliil Faarax in la sameeyo ayaan soo jeedan lahaa oo shacabka Soomaaliyeed u baaqayaa midda kale Prime Minister shaqadiisa ha qabsado doorashada ha socoto kiiskana waxaa iskale garsoorka maxkamadda iyo xiraalinta inay shaqadooda qabsadaan ciddii geysatayna sharciga la horgeeyo cid sharci ka horweyn ma jirto qofka ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyo waxaa u sameeyeen dhammaanba sharciga si uu qabanaya marka waxaan leeyahay yaan loo hiilanin cadaalad darrada Soomaaliya waxay ka dega waayay 30 sano waa cadaalad darro ayaa basic loogu dhigay marka cadaalad darrada aan ka tagno aanu guurno cadaaladda waxa wax loo heli karo waa cadaalad waxaan arkay shalay dad dhaayo faad laga qaadi karo xilka oo in shirada soo xirto maxaan shirada loo xiranaya haddii ay cadaalad ku socdaan ay toos soo banaan u soo baxaan marka runtii waxaan leeyahay arrintaas waa arrin aad u foolxun waa arrin cambaareenayno haddii aan nahay ururada bulshada waana taageersanahay mudane Maxamed Xuseen Rooble asiga ayaa mas'uuliyadda ay saaran tahay qolada waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka oo xal soo saaray baaqa waxaan leeyahay yaa laga gabanan arrinta meesha ay jirto oo jeedin qalad dadkooda waad aragtaan waa inay dhacdaa shaqadii Cabdullaahi Yuusuf 2008 arrintii dhacday aakhirkeedii waa inay dhacdaa oo shaqo la qabsadaa qofkii wadanka inuu burburiyo rabo dhaqaalaha ka galay beesha caalamka waqti ay ku soo bixiyeen waa inay ka soo horjeestaan qof walba burburinayo oo dagaal raadinayo oo raba kiis inuu soo afjaro oo qariyo rabo inuu laga dacweeyo maxkamadda Hague ayaan soo jeedin lahaa aad u maasantii VOA-da qaybta muuqaalada marka aad si dhab ah u fiirsato hadallada xanafta leh ee ay warbaahinta isku marinayaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble magacaabista iska soo horjeeda ee ka soo kala baxaya xafiisyadooda waxa ay dib u dhac ay ku keeni kartaa hanaanka doorasho ee dalka oo haatan qayb ka mid ah ay qabsoomeen balse lama saadaalin karo halka ay ku dambeyn doonto khilaafkoodaasi حسن أنتنا VOS TV مقدشو